السلام عليكم daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aynu idinka diyaarinay waxa loo yaqaano toddobada shay ee adduunka ugu la yaabka badan sanad kasta ama qarni kasta aan idhaahday waxa jira toddoba shay oo adduunka loo aqoonsanaado in ay yihiin toddobada shay ee adduunka ugu la yaabka badan iyadoo casrigan maanta aynu joogno ay jiraan toddoba shay oo loo garan og yahay ama adduunku isku raacsan yahay in ay yihiin toddobada shay ee adduunka ugu la yaabka badan hase ahaatee waxaa jiray toddoba shay oo markii u horreysay loo aqoonsanaaday in ay yihiin toddobada shay ee adduunka ugu la yaabka badan inagoo barnaamijkeena diiradda ku saarayna toddobada shay ee u horreeyay ee adduunka ugu la yaabka badnaa ayaa waxa ay kala ahaayeen toddobadaasi beerihii baabilka taalada sayuus ahraamta dalka masar taalada iskandariya macbadka artemis haykalka musallos iyo taalada rodos toddobadan shay waxa ay yihiin toddobadii shay ee u horreeyay ee adduunku isku raacay in ay yihiin toddobada shay ee adduunka ugu la yaabka badan inagoo mid walba yar dul istaagi doona faalla yarna ka bixin doona aynu ku horreyno beeraha baabilka baabilku waa boqorkii xilligii boqortooyadii baabilka ka talinaysay waddanka ciraaq kaasoo lagu magacaabi jiray nabukadnesar oo talada boqortooyada hayay sanadihii 562 ilaa 605 ka hor taariikhda miilaadiga sidoo kale baabil waa caasimadii boqortooyadii baabil taasoo cajiib ku ahayd xadaaradaha iyo wax soo saarka iyadoo lagu tilmaamo in ay ahayd magaaladii u horreysay ee dadkeedu ay gaadhaan 200 oo kun oo qof dhismahan cajiibka ee ka mid noqday toddobada la yaab ee adduunka ayaa lagu sheegay in ay ka dambeysay kadib markii boqorada uu qabay boqor nabukadnesar oo lagu magacaabi jiray boqorad eril oo asal ahaan ka soo jeeday waddanka Persia oo asal ahaan isagu caan ku ahaa cagaarka iyo dooga ay dalbatay in ay hesho meelo qurux badan oo cagaar ah maadaama halka ay ka talinaysay dawladda baabilku aysan lahayn wax cagaar ah oo ay ku taalay dhul lama degaan oo saxara haddaba si uu boqorku u rumeeyo hamiga iyo waxa ay niyada ku qabatay boqorad eril ayaa waxa uu sameeyay beerahan ka mid noqday toddobada la yaab ee adduunka farshaxanka qaabaysan ee tarabka isu saaran ee loo beeray dhirtan cajiibka ayaa bad ahaan lagu qiyaasaa in ay ku fadhido 14400 oo mitir square halka dherer ahaan lagu qiyaaso in ay kor u gaadho 50 dhundhun dhismaha iyo nashqada dhirtan cajiibka ee ka mid noqday toddobada la yaab ee adduunka ayaa la sameeyay 600 oo sano ka hor taariikhda miilaadiga taalada sayuus ilaahi Greega waa sida ay u yaqaaneen dadkii noolaa qarniyadii shanaad ka hor taariikhda miilaadiga iyadoo qarniyadii kala duwanaa ee dunida soo maray ee aan haysan diinta islaamka mid kastaaba u lahaa aaliha gaara iyo asnaam ay caabudaan ayaa dadkii noolaa qarnigii shanaad ka hor taariikhda miilaadiga waxa ay caabudi jireen ama ay sayuus u yaqaaneen inuu ahaa aalihadii marka ay caabudi jireen kii ugu awoodda weynaa sayuus waxa uu ahaa xooggii iyo awooddii ugu weyneed ee ay lahaayeen dadka ku nool waddanka Greega waana sababta ay ugu bixiyeen ilaahyada kadib geeridiisii si ay u xusaan una weyneeyaan waxa ay dhiseen taaladan cajiibka ee ka mid noqotay toddobada la yaab ee adduunka taasoo dhererkeedu gaadho 13 mitir taalada sayuus ayaa la tilmaamaa in laga sameeyay haragga maroodiga iyadoo ay ku taalay ama dhismaheedu ahaa magaalada Olympia ee dalka Greega hase ahaatee dagaalo duulaano iyo dhulgariiryo ka dhacay kadib waxaa gabi ahaanba duntay taalada sayuus ee ka mid ahayd toddobada la yaab ee adduunka horaantii qarnigii shanaad ka hor taariikhda miilaadiga ahraamta masar iyadoo aynu ka warramayno toddobadii la yaab ee hore adduunka ugu horreeyay ama adduunku u aqoonsanaaday in ay yihiin toddobada shay ee adduunka ugu la yaabka badan ayaa masar ama ahraamta masar waxa ay wali ka mid tahay toddobada shay ee isla casrigan maanta aynu joogno loo aqoon og yahay in ay yihiin toddobada shay ee adduunka ugu la yaabka badan ahraamta masar waxa la sameeyay xilligii boqortooyadii afraad ama casrigii loo yaqaanay casru dahabi oo gaar u lahaa xadaaradaha iyo wax soo saarka dunida taasoo ka talinaysay dalka masar sanadihii 2496 ilaa 2613 ka hor taariikhda miilaadiga ilaa markii dambe lagu magacaabay ama loo aqoonsanaaday casrigii dhismaha ahraamta
dhismaha ahraamta Masar oo dherer ahaan lagu qiyaaso inay gaadhaan 150 mitir ayaa socday ku dhawaad 20 sano oo xidhiidh ah iyadoo ay ka qayb qaateen ku dhawaad 100,000 oo shaqaale sida uu sheegay Herodotus oo ahaa saynisyahan Greek oo booqday dalka Masar horaantii qarnigii afraad ee ka hor taariikhda miilaadiga. waxyaabaha xusida mudan ee ku jira dhismaha ahraamta Masar ayaa ah in dunida xilligaa jirtay aysan lahayn waxyaabo badan oo dunida maanta wax lagu dhiso hase ahaatee dadkii waqtigaa jiray haddana ay dhiseen dhismaha intaan dherer ahaan leeg. sida oo kale waxaa la tilmaamaa dhismaha hoostiisa in ay ku jiraan qabuuro lagu aaso dadka dhinta iyo weliba dhammaan wixii ay hanti lahaayeen qof kasta isla marka uu dhinto. isku soo duuduub oo ahraamta Masar ayaa ah tan wali dunida ka taagan ee ka mid ah 7 la yaab ee adduunka. taalada Iskandariya waa mid afraad ee aynu barnaamijkeena dul istaagi doono kana mid ahay 7 shay ee adduunka uu aqoonsanaa in ay yihiin 7 shay ee adduunka ugu la yaabka badan. Iskandariya ayaa ku taalay magaalada Faros ee jasiiradda Iskandariya ee dalka Masar. Iskandariya ayaa ahayd caasimadii hore ee dalka Masar halka ay hadda tahay caasimadda labaad ee waddankaasi leeyahay. taalada Iskandariya ee ka mid ahay 7 la yaab ee hore adduunka ayaa dhismaheeda la bilaabay 279 ilaa 299 ka hor taariikhda miilaadiga sida ay xusaan taariikhyahanadu. taalada Iskandariya ayaa lagu tiriyaa inay ahay taaladii u horeysay ee adduunka laga taago iyadoo dherer ahaan gaadhaysay 137 mitir. Sostratus oo ahaa injineerka qaabeeyay taaladan cajiibka ee ka mid noqotay 7 shay ee adduunka ugu la yaabka badan ayaa ka soo jeeday dalka Greega kaasoo dhintay horaantii qarnigii 3aad ee taariikhda miilaadiga. kadib dhulgariiryo badan oo ku dhuftay dalka Masar ayaa sanadii 1480 miilaadiga waxaa gabi ahaanba duntay taalada Iskandariya oo ka mid ahay 7 shay ee adduunka ugu la yaabka badan. macbadka Artemis waa mid ka mid ah macaabidii hore ee Roomaanka oo ku yaalay magaalada Afsos juqraafi ahaan hadda ka tirsan dalka Turkiga. macbadka cajiibka ee ka mid noqday 7 la yaab ee adduunka ayaa koobsaday farshaxan iyo ruqaan cajiib ah oo gaar u lahaa isagoo la dhisay 550 sano ka hor taariikhda miilaadiga. dhismaha macbadka Artemis ayaa ka kooban alwaax khashaba oo dunida waqtiga ahaa waxaan hore loo arag. alwaaxdan oo midkiiba dhererkiisu gaadho 12 mitir iyadoo dhismaha intiisa kale uu ka kooban yahay marmar cad kaasoo guud ahaan dhererkiisa lagu qiyaaso inuu gaadho 115 mitir halka ballac ahaan uu ahaa 55 mitir. Chrysophon iyo wiilkiisa Metagenes waa labada nin ee nashqadeeyay dhismaha macbadka Artemis ee ka mid ahaa 7 la yaab ee adduunka ugu cajiibka badan ama 7 shay ee adduunka ugu cajiibka badan. dhismaha macbadka Artemis ayaa tira ahaan dumay 2 jeer iyadoo markii hore la gubay macbadka 262 ka hor taariikhda miilaadiga halka markii dambe la gubay 356 sano ka hor taariikhda miilaadiga. haykalka Musallos waa boqorkii hore ee dalka Greega 337 sano ka hor taariikhda miilaadiga waana ninkii dhistay dhismaha cajiibka ee ka mid noqday 7 la yaab ee adduunka. boqor Musallos ayaa caasimad ka dhigtay magaalada Helikranos ee ku taala galbeedka wabiga Anadol ee dalka Turkiga. Musallos oo ahaa boqor caan ku ahaa inuu jecel yahay faanka iyo quruxda adduunyo ee Ilaahay siiyay in uu ku faano ayaa isaga oo nool dhistay dhismahan cajiibka ee ka mid noqday 7 shay ee adduunka ugu cajiibka badan si hadhowto marka uu dhintana uu u noqdo qabriga lagu aasi doono boqorka. taariikhyahano kala duwan oo Greek ayaa tilmaamay in boqorku aanu dhisan qabrigan ama taaladan hase ahaatee ay dhistay haweenaydiisii ama xaaskiisii kadib dhimashadiisii boqor Musallos. isku soo duuba boqor Musallos waxa uu ahaa boqorka ku aasan qabriga ka mid noqday ama dhismaha ka mid noqday 7 shay ee adduunka ugu la yaabka badan. dhismaha qabriga Musallos ayaa dherer ahaan lagu qiyaasaa inuu gaadho 55 mitir iyadoo dhismaha uu ka kooban yahay 3 lakab oo kiisa u hooseeya uu yahay qabri aad u weyn oo ku nashqadaysan libaaxyo dhoobo laga qoray. Musallos haykalka cajiibka ee hortaada ka muuqda kana mid ah 7 shay ee adduunka ugu la yaabka badan ayaa waxaa la dhisay 337 ka hor taariikhda miilaadiga hase ahaatee dhulgariiryo dhacay kadib waxaa gabi ahaanba dunida ka soo guuray
taaladii cajiibka ahayd ee ka mid noqotay toddobada shay ee adduunku ugu garan og yahay in ay ahaayeen toddobada shay ee adduunka ugu layaabka badnaa. taalada Rhodos oo ka mid ahay dhulka uu ka talin jiray boqorkii Alexanderkii weynaa oo ku taala agagaarka dalka Greega ayaa la dhisay 280 ilaa 292 ka hor taariikhda miilaadiga. dhismaha taalada Rhodos ayaa dherer ahaan lagu qiyaasaa 330 mitir. dhismaheeda waxaa la waday ku dhawaad 12 sano oo xidhiidha, hase ahaatee 56 sano oo uu dunida ka taagnaa. dhismaha taalada Rhodos ayaa gabi ahaanba duntay kadib duulaano iyo dhulgariiryo ku dhuftay goobta uu ku yaalay taalada Rhodos. soo duuduubo toddobada shay aynu ka sheekeynay waa toddobada shay ee adduunka u horeeyay adduunkuna isku raacay in ay ahaayeen toddobadii shay ee adduunka u horeeyay loona garan ogaado ama loo aqoonsanaado in ay yihiin toddobada shay ee adduunka ugu layaabka badan. hase ahaatee casrigan maanta aynu joogno waxaa jira 7 shay oo kale oo mid ka mid uu yahay kuwa iminka aynu tilmaamnay oo adduunku u aqoonsan yahay in ay yihiin 7 shay ee adduunka ugu layaabka badan. barnaamijkeenan xiga ayaynu kaga sheekeyn doonaa ama ku soo qaadan doonaa waxa ay yihiin 7 shay ee casrigan maanta loo yaqaano 7 shay ee adduunka ugu layaabka badan, inagoo mid kastana ka bixin doona faalo kooban. Xakiim Khadar, amaana Allah.